Ciidamada Xogga dalka gaar ahaan Qeybta 21 ayaa waxay ku guuleysteen xasilinta dagaal beeleedyo ka dhacay Waqooyiga Gobolka Galgaduud. Taliska ayaa waxa ay sheegeen in maleeshiyada dirirta ay kala dhex dhigeen ciidamo ka tirsan Qeybta 21 ee Xogga dalka si ay u baajiyaan dagaal kale oo halkaasi ka dhaca. Taliyaha ciidamada xasilinta degmada Cabudwaaq ee Waqooyiga Gobolka Galgaduud, gaashaanle sare Axmed Baraaf iyo sidoo kale gaashaanle Cabdirashiid Surcad ayaa si wadajir ah howlgalkan uga hadlay iyagoona sheegay inay sidoo kale soo qabteen dadka ganacsanayay maandooriyaal kuwaasi oo ay sheegeen inay sharciga la tiigsan doonaan. Waxaan ka warbixinayaa dhacdooyin ka dhacay degmada Cabudwaaq oo dhimashada iyo dhaawaca iyo isugu jiray hanti la kala gubay dhacdayna 2019 bishii October 29keedii ka dhacay degmada Cabudwaaq dhimasho iyo dhaawac iyo hanti la kala gubay. Arrintaas oo aan qaybta 21aad ay u soo gurmatay meeshaasna ciidamadii joogay aan ku kala qaadnay xabad joojinna aan ka sameynay ka bacdi markaan xabad joojin sameynayna oo aan fariisinay xabad joojintii iyo amniga aan sugnay waxaan dib u bilownay labadii beelood wax kala gaareen hanti haday noqoto iyo dhiig iyo dhaawac haday noqoto yaan dib u bilownay waxaan ku guuleysanay hantidii la gubay oo labada beelood kala gubeen oo 5 qol oo sardila ah inaan ayada hadii Ilaahay guuran yahay dhisnay labadii beeloodna ay ku kala qanceen xaqii hantidii la kala gubay. Inta markay dhamaatay waxaan dib u bilownay isu keenidii labada beelood ee dhaawaca iyo dhimashada lahaa ee degmada Cabudwaaq ka dhacay taariikhdu markay ahayd bishii 12aad ee 2019 sagaalkeedii oo ku beegnayd maalin Isniina wada hadalkii ugu horeeyay ayaa halka ka bilowday. waxaan rajaynaynaa maalmahan si saraaxad leh oo gacnaha isu saaraan labada beelood inay ku soo gabagabowdo. Inta waxa weeliyay ayadoo aan ku dhex jirno waxa shaqaaqa ka dhex bilaabatay degmada Cadaadood beeshii ka tirsanayd iyo beesha Bangeele ayaa dhaawacyo isdaba joog ka dhaceen. ayadana gurmad baan ka sameynay saraakiisha qaybta 21aad iyo taliyaha qaybta 21aad waxaan ku guuleysanay in ciidamadii kala qaadno xabad joojinna aan sameeyno ciidamada iyadii aan kala dhex dhigno ilaa iyo haddana ay ku sugan yihiin Bangeele iyo Xijilab dhexdooda oo ay kala dhex taagan yihiin labadii beelood oo dhaawacyada isdaba joogga ka dhaceen. waxaan u ballansanahay dib u heshiisiin aan iskugu keenno iyo gobol aan fidino aan rajaynayna maalmaha soo socda inaan waqtigeedii iyo meesheeda sheegi doono. waxaan qabanay dadkeena qamrada waxaanan ku kala qabanay wax la cabayay iyo waxaan guri ka soo qabanay intaba waana noo xirxiran yihiin dadkii maqaadiraadka aan ku soo qabanay waxay mudan yihiin baan ku fulin doonaa. waxaan ku baaqaynaa qoriga in la xareysto soo hore u sheegnay daroogada inaan wadanka lagu soo celin ninkii lagu qabtana usmarayo waajibaadka qaranka Soomaaliya oo ugu talagalay degmadana laga dhoofin doono meelo ku haboon oo waajibaadka looga gudan doono in la geyn doono aan degmooyinka ahayn. dadka ka soo jeeda Cadaado iyo degmada Cabudwaaq oo ciidamada hadda dhex joogan sida Bangeele Xijilab Meer Hayley waxa dhiman wada hadalkeedii iyo gubasheedii waxa weeye waxay ka falantaa madaxda dawladda federaalka kuwa taliyaha qaybta 21aad oo kale anagu waxaana ciidankii la amray shaqadana waan haynaa insha Allah sida xoguhu taliyayaashu noo siinayaana inay mar dhow gobashaas waxa weeye aan gobli doono annaga ciidanka qaybta 21aad wada hadalkuna uu dhici doono. Maxamed Cabduqaadir Zilva, Galmudug TV.